Hello, dear learners. This is Afla Academy. Welcome again. And our today's lesson is all about alphabetical order. And Ashar Kani, Kiku Re Hanso Barnay, alphabetics, or an Kusuarane, Arfaha, or Lawyer Kano alphabetical. Hanso Arane, I go well, yo, I go Yar, Sudo Kalato Hanso Arane, and I could win him alphabetics ka. marka dear learners casharkii wali socdo kuwan waxaan ku fiiri doonaa insha Allah waxa loo yaqaano alphabetical order waxa weeye how the consequence qaabka isku xigxigaan ayaa waxa la yiraahdaa orderku waxa weeye qaabka isku raacaan ayaa la yiraahdaa alphabetical order marka channelka dad ku cusub tahay subscribe saaro marka ayaan fiiri doonaa insha Allah meeshan waxa ku qoran alphabetics key ayaa ku qoran marka this alphabetics kani from A to Z weeye A ayay ka bilaabataa Z na ayay ku agtahay markaan leenahay A ayay ka bilaabataa oo Z ayay ku agtahay markaan leenahay waxa weeye mid kastaba waxa la hordhigay ama lagu xiray mid ayada la micnaa hadii meeshan the letter oo meeshan ay ka bilaabanayso xaraf la micnaa ama word la micnaa ayaa ku xiga marka so from there now meeshan tusaale ahaan aanay A for apple, P for boy, C for cat, D for dog, E for egg, F for frog, G for giraffe, H for house, I for ink, J for jack, K for key, L for lion, M for moon, N for nose, O for onion, P for pencil, Q for queen, R for rat, S for sun, T for tab, U for uniform, V for valley, W for water, X for x-ray, Y for yellow, Z for zebra. marka guud ahaan yani waxa weeye mid kastaba waxa waayo its approach ama mid ay ku xigweeye saaro kale to meesha waxa noo qoran apple markaan leenahay waxa weeye waa baalkan la yiraahdo tufaaxa ayaa waxa la yiraahdaa apple ayaa la yiraahdaa tufaax so apple waxa weeye tufaax waay apple waxa weeye tufaax so A for apple waxana marka A for apple waa tufaax P for boy ayadana waxa weeye waa wheel waay P for boy waxa waaye waa wheel B for boy waa wheel haye maxaa ku xigay marka C for cat ayadana waxa weeye waa bisad cat waxa weeye waa bisad ama yaanyo saa u taqaanaba D for dog ayadana waxa weeye waa kelb waa D for dog waa A E for egg ayadana waxa la yiraahdaa ukun E for egg waxa la yiraahdaa ukun F for frog waxa weeye waa rax ama rake saa u taqaanaba G for giraffe waxa la yiraahdaa gari G for giraffe waxa weeye waa gari H for house waxa la yiraahdaa waa guri H for house ayadana waxa weeye waa guriga caadiga waa la yiraahdaa H for house waa guri I for ink ayadana waxa weeye waa qad I for ink waxa la yiraahdaa waa qad ink waxa weeye waa qad J for jack waxa la yiraahdaa waa gabaldi ama garaafsa oo taqaanaba ayaa waxa la yiraahdaa J for jack K for key ayadana waxa weeye waa furaha guriga waa K for key waxa weeye waa furaha K for key waxa weeye waa furaha L for lion waa libax M for moon waxa weeye waa dayaxa ama bisha saa u taqaanaba N for nose waxa la yiraahdaa waa sanki waa nose and nose this one waxa nose N for nose waa san O for onion waxa la yiraahdaa waa basashi waa onion waxa weeye waa basal onion waxa la yiraahdaa basal waa onion waa basal P for pencil waxa la yiraahdaa qalin qori waa B for pencil waxa la yiraahdaa qalin qori this one the normal pencil that we use waxa la yiraahdaa pencil it has a rubber band dawada wuxuu ka leeyahay meel wax lagu tirtiro ayuu leeyahay that's called pencil even we can also say pen waa dhigi karnaa sidoo kale we can also say pen waa dhigi karnaa note sidoo kale waa dhigi karnaa and for nice and for knees waa dhigi karnaa nice we can use any letter or resemble to the initial word ereykaasoo limcina ereygaasoo isticmaali karnaa Q for queen waxa la yiraahdaa waa qorad Q for queen waxa la yiraahdaa
وبقرات بقرات سو كهليغا بريز لكن ميشن اي جليسا ايضنا سو انت waxaan oo qoran r marka isticmaalna waxaan leeyahay karna rat arfo rat waxa weeye waa dooli way rat waxa la yiraahdaa waa dooli s for sun waxa la yiraahdaa waa qorax sun waxa weeye waa qorax ama cadceed sa u taqaanada t for tab waxa la yiraahdaa waa tubada biyaha way tab waxa weeye tubada biyaha u for uniform waxa la yiraahdaa waa dress halkan ay xirtaan ardayda ayaa la yiraahdaa uniform dress u for uniform waa dress v for valley waxa la yiraahdaa waa bohol ama meel oo sheeb ah ama biyo ay maraan oo biyo daad ay maraan waxa la yiraahdaa valley w for water waa bihi waa we can also use waxaan isticmaali karnaa w for watch waa saacad waa isticmaali karnaa يعني واستعمال كرنا أيضا أصدق watch واستعمال كرنا حتى also valley واستعمال كرنا village واستعمال كرنا أيضا أصدق كرنا تجمعتها حافظ واستعمال كرنا أوكي x for x-ray وحالي هذا والراجتو x-ray وحالي هذا راجتا اللي هذا x for x-ray وحاوي والراجتو وحكى استعمال كرنا excellence وحكى استعمال كرنا excellence x for excellence ما استعمال كرنا it's just okay no matter so أنت لو حنقارن y for yellow وحالي يردا وجالة yellow وحالي يردا جالة شيء مركي كلامك جالة وياهي عليه كرنا yellow yellow جالة we can also york واستعمال كرنا سيدا كلا استعمال كرنا york no matter the middle the yellow color of the yellow color ama the yellow membrane that contains the egg waxyaaba ukun gudaha ku jira waxa la yiraahdaa yolk antana waxaan oo qoran z for zip ama z for zip waa isticmaali karnaa ayadana sidoo kale laakiin waxaan oo qoran zebra waxa la yiraahdaa dameer faro ayaa la yiraahdaa zebra so z for zebra waa dameer faro so guud ahaan alphabetical order ki aan maanta rabnay casharkeena inaan ka dhigno halkaas ayuu ku yahay fadlan waxaan ka codsanaa shirkadda ku cusubtahay subscribe saaran haddii hore aad joogteena like share and comment waa dhanka insha Allah we wish to reach the next lesson insha Allah thank you